maamulka Somaliland ayaa ka jawaabay hadal ka soo yeeray taliyaha ciidanka daraawiisha dowlad goboleedka Puntland Cabshir Cabdi Jaamac oo ku aadanaa in Somaliland ay maalgeliso kooxda Al-Shabaab. Taliyaha guud ee ciidamada Somaliland General Nuux Ismaaciil Taani oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay in Somaliland ay maalgeliso kooxda Al-Shabaab. waxaan jeclahay maanta inaan ka jawaabo hanjabaado badan oo maalmaha ka socday Puntland tii ugu dambeeyayna uu jeediyay khamiistii taliyaha ciidanka daraawiishta Puntland Cabshir Cabdi Jaamac ka taliyaha ee hadlayay maalin dhawad baa la magacaabay qurbahana uu ka yimid wixii wadanka ka dhacayna waxba kama ogeyn waxay ahaydna inuu waraysto raggii ka horreeyay inuu waraysto bay ahayd laakiin wuu iska hadlay kelmaduhu wax ku hadlay mid hanjabaad bay ahayd midna caybuu ka dhigayay maalmihii ugu dambeeyay dhan iyagoo ka hadlaya boocane hanjabaado kala duwan ayay qolooyinka agaasimayaalaha haadaan amba wasiiraha haadaan amba taliyaal ciidamaha haadaan ayay midiyaha soo marinayeen waan arkayay taliyahan ciidamada daraawiishta oo dhowr iyo 10 meelood marba meel istaagaya oo hanjabaada kala duwan ciidamo la dejinayo halka iyo kuwa halka la dejinayo oo waraabowtaaga umar meel baa tarka la taagayo waraabowtaaga meel istaagay waan la socday inuu meelaha istaagtay dhowr iyo 10 meelood. taliyaha ciidanka Somaliland ayaa waxa uu hadalkiisa intaas ku sii daray in liiskii ugu dambeeyay ee shirkadii dowladda Mareykanka ay ku tilmaantay argagixisada ay dhamaantood ka soo jeedeen deegaanada Puntland. wararkii ugu dambeeyay ee soo saartay Mareykanku soo saaray 8 qof uu sheegay 8 beeshin ahayd aagin ahayd nin Somaliland kuma jirin taas cadeynaysa waxaynu kala nahay marka waxaad adu hoos isku eeg media hana akhriso international waxay ka qoreen. General Nuux Ismaaciil Taani ayaa Puntland ku eedeeyay inay horinayso dagaal dhexmara labada dhinac balse waxa uu xusay inay yaqaanaan waxa uu dagaal yahay isla markaana hadii ay tallaabo qaadaan ay ka jawaabi doonaan. anagu dagaal ma jeclin wuxuu yahayna waan naqaanaa laakiin haddii noo kalifto dad ka jawaaba ayaan nahay kana midha dhaliya ayaan nahay marka hadda dalka waad ka maqnayde waxaan leeyahay wax badan baa soo dhacay ka waraysan raggii ka horreeyay taariikhda waa la darsaa ka horeyso hanjabaadana anagu dad jilcaya ma yihin hadda baanu diyaar nahay haddaad adu waxbaad ururinaysaa anagu diyaar baanu nahay laakiin kuma degdegna dagaalka bilaa dagaalkaada baabulayso wax badan ku seegtay adigu waan kula iska daa hanjabaada darisnimada ilaali nabadgelyada ilaali sidaas raggii horeba lagu wada shaqeynayay. asagoo si hadlaya taliyaha guud ee ciidamada Somaliland ayaa waxa uu tilmaamay in maamulka Puntland ay ku ixtiraamayaan darisnimo hase yeeshee waxa uu sheegay in maamulka Puntland ay maalmahan wadaan hanjabaad iyagoon horinayo colaad taasina ay sameeyaan wax la aqbali karo. anagoo ciidan ahaan Somaliland iyo dawladda Somaliland ba hadiyo go'aalaha wuxuu ku dhisan yahay nabadgelyo inuu kula dhaqmo jaarkeeda Puntland jaar baan nahay ولنا انت هذا القذفة أم بعض الحن Somaliland كما يرون وحنا نقول دورة جار لماذا لكن هذا يقول عليه أم بقول السيفل كهات أم بقول الملتري كهات هذا اللب بدن أو أن لب هنو دلقاف هاي كودي نقول هذا كمان جابنا بديا مبدأ يقولون بحكود سنة النبض si kastaba maamulka Puntland ayaa marar kala duwan ku eedeeyay Somaliland inay xiriir iyo wada shaqayn la leeyihiin kooxda Al-Shabaab balse Somaliland ayaa markasta beenisay arrinkaasi.